waxaan dhammaanteena maqalnay cibaadooyin diimeed iyo masiibo foolxumo badan hase ahaatee qof loo diyaariyey ma jirin 2019 laba caruur oo la waayay iyo dhimasho fara badan kusoo dhawaaw feelasha cabsida badan si aan ugu hadalno kiisaska cabsida badan ee adduunka oo dhan ka dhaca ka hor intaanan bilaawin waxaan jeclaan lahaa daawade inaad muuqaalka like saarto kusoo dhawaada Bernardo, California. Habeenii lagu magacaabo Lori Noreen Cox, taas oo magaceeda gadaalihii dambe u bedeshay Valo, waxay dhalatay 1973 26 bisha Juun. Familkeeda waxa uu ahaa mid ballaaran. Waxa uuna ka koobnaa Alex iyo Adam oo walaalaheeda ah oo wiilasha, iyo 3 gabdhood, Stacy, Lori iyo Summer. Caruurnimadeedu waxay ahayd mid iska caadi ah. Sanadka markuu ahaa 1992 Lori waxay guursatay wiil ay iskuulka sare isla dhigan jireen oo lagu magacaabo Nelson Yenis. Waqtigaas oo ay Lori da'deeda ahayd 19 sano. Run ahaantii waxay ahaayeen kuwa aad isku jecel. Kadib hal sano guurkooda way isbedeleen wax walba. Jacaylkii quruxda badnaa iyo romantigii wuxuu ku dhamaaday furiin. Laakiin Lori iyada oo aan wax badan ahayn mid garoob ah ama single, 2 sano kadib waxay noqotay xaas la qabo. Waxaa guursaday nin lagu magacaabo William. sanadka markuu ahaa 1995 arintooda waxay u ekeed mid si fiican u sii socon doonto waxayna haysteen hal wiil oo ay ugu magac dareen Colby Ryan. Muddo kadib arintii way isbedeshay. sanadka markuu ahaa 1998 William wuu furay Lori. 3 sano kadib Lori waxay go'aansatay in ay xaas noqoto markii saddexaad. Waxay guursatay Joseph Ryan sanadka markuu ahaa 2001. lamaanayaashan waxa uu dhashay cunug sanadka markuu ahaa 2002 September 24. markaan waxa uu dhashay gabar waxay ugu magac dartay Tylee. arinta waxay u muuqatay haddana markii saddexaad mid aan soo jiidasho lahayn maxaa yeelay sanadka markuu ahaa 2004 waxay ninkeeda ka dalbatay furiin. Lori ayaa waxay walaalkeeda Alex u sheegtay in ninkeeda Joseph uu ahaa mid aflagaada badan oo dhibaateeya iyada. Alex ayaa aad ugu hanjabay Joseph asaga oo ugu dambeyn weeraray qalabka ay booliiska isticmaalaan oo ah sida bistoolada camal oo wax maasa leh. ficilkaas uu sameeyay dartiisa waxa uu ku mutaystay 90 maalmood oo xirig ah iyo 5 sano oo tijaabo. yacni tijaabo waxa laga wadaa waxa uu sameynayo ayaa la soconayaa asaga oo lugta ama gacanta loogu xiray qalab sheegaya meesha uu ku sugan yahay iyo waxa uu sameynayo. run ahaantii Lori waxay ahayd gabar aad u qurux badan oo rag badan ay raadiyaan. xataa waxay ka qayb gashay tartanka quruxda ee magaalada Texas sanadka markuu ahaa 2004 iyada oo u haysatay in ay jacayl la wadaagi doonto ragga meesha imaan doona. Lori waxay ahayd qof xur ah oo aan dulqaad lahayn. haddii arintay rabtay ay waysana waxay u joojinaysay ma jirin. waxay sameyn jirtay wax walbo ay ku helayso wixii ay rabtay. run ahaantii inaad daneysto naqatid waa wax laga fiican yahay, waan wax sababi kara inaad kaligaaga noolaato. 2005 mar kale ayay Lori noqotay mid single ah waxayna haysataa doorkan 2 caruur, Tylee iyo Ryan. waxayna aad u xanaaneyn jirtay waqtigeeda ugu badan Tylee. inta lagu jiray isla sanadkaas waxay la kulantay nin kale. Lori mar kale ayaa jacayl galay, laakiin markaa ninkeeda cusub wuxuu noqon doonaa mid la xiriira kiiskan. Charles Wallow waxa uu ahaa nin howlkar ah oo aad u qurux badan wuxuuna ka soo jeeday famil weyn. wuxuu dhashay 1957 Agoosto 17. Lori iyo asaga waxa ay isbarteen asaga oo 49 sano jir ah, laakiin wuxuu u muuqday mid da'daas ka yar. mar kale ayay arintii isbedeshay sanadka markuu ahaa 2006 Febraayo 4. Charles waxa uu dhalay 2 caruur waxaana lagu magacaabaa Nicholas iyo Zachary. waxay u wada noolaayeen si wada jir ah. Lori oo caruurteeda oo 2 ah iyo Charles oo caruurtiisa ka kooban 2 waxay noqdeen famil ka kooban 6 qof. xilligan waxay arintu u muuqataa sidii hore inay ka wanaagsan tahay. aad ayayna u faraxsan yihiin familka. Charles dakhligiisa aad ayuu u wanaagsanaa, kaas oo awood u lahaa inuu qof walba guriga si wanaagsan ugu noolaado. 2014 waxay go'aansadeen familkan in ay koriyaan wiil yar oo Charles uu abti u yahay oo lagu magacaabo Joshua Jackson Wallow ama JJ. waqtigaas 3 wiil meel kale ayay ku noolaayeen oo ay dhaleen Charles iyo Lori. yacni Lori iyo ninkeeda waxa uu joogay guriga Tylee iyo JJ oo hadda ku soo kordhay familka. maxaa yeelay Lori ma ahayn xilligaas qof shaqaysa,
aad ayayna u caajistay waxay isku dayday in ay wax cusub la imaado. familkan oo 4 qof ka koobnaa ayaa boorsadahooda xirtay waxayna aadeen Hawaii si ay u bilaabaan ganacsigooda cusub. waxay fureen meel casiirka lagu iibiyo waxayna ugu magac dareen Juice Island. qof walba waxa uu u muuqday run ahaantii in uu ku raaxaysanayo xilligiisa quruxda badan. Lori iyo gabadheeda Tylee waxay iska soo qaadayeen sawiro aad u qurux badan oo halka ay ku sugan yihiin ah iyaga oo soo dhigay social media sida Facebooka. taageerayaashoodan aad ayay ula dhaceen sawirada quruxda badan. Lori waxaa soo jiitay buugaag taxane ah intii ay ku noolaayeen Hawaii. waxay bilowday in ay akhriso iyada oo nolol maalmeedkeeda ka dhigatay akhrinta buugaagtan ku saabsan dhicitaanka qiyaamaha. iyada horey waxay u ahayd mid ka mid ah xubnaha kaniisadda aadna way u xiiseynaysay buugaagtan oo ku saabsan in uu qiyaamaha dhici doono goordhow. run ahaantii Lori akhrinta buugaagtan waxa ay bedeleen habdhaqankeeda iyada oo iska dhaadhicisay in ay jannada u dhowdahay. ganacsigii ay bilowdayna way ku khasaartay. 2 sano kadib sanadka markuu ahaa 2016 waxay bilaabeen in ay u soo noqdaan Arizona. waa meeshii ay ka bilowdeen wax walba kuna burburi doono guriga Lori. Lori wili waxa ay ku guda jirtaa akhrinta buugaagta uu qoray Jad Dybal. sanadka markuu ahaa 2018 Lori iyo saaxiibteeda Melanie waxay ka qayb galeen dhacdo loogu magac daray Barbarian People. waana meesha ay kula kulantay qoraaga buugaagta ay aadka u xiiseyso ee Jad Dybal, kaas oo nolosheeda bedelay iyo qaab fahankeeda marka dhinac walba laga eego. waxay bilaabeen in ay wada hadlaan oo ay isbartaan Lori iyo Jad Dybal. kadib waxay noqdeen dad isbartay oo messages ku dira yani xiriir bilow camal. kadib 7 isbuuc dhacdadii Jad Dybal, Lori ninkeeda waxa uu qorsheystay in uu arrimo ganacsi la xiriiro u baxo. kadib Lori waxay isdhahday allayleh waa Janice, waa inaan saaxiibkayga casuumaa. kadib waxay gurigeeda ku casuuntay saaxiibkeeda Jad Dybal. sidoo kale waxay casuuntay saaxiibteeda Melanie iyo Jad Dybal asxaabtiisa. habeenkaas waxay aad ugu sheekaysteen arrimaha la xiriira buugaagta uu qoray Jad Dybal iyaga oo si qoto dheer ah uga hadlay micnaha dhabta ah ee Allah iyo waxa ay ka qabaan diimaha kale. Jad Dybal waxa uu ahaa nin la yaab badan xataa yaraantiisa. wuxuuna dhashay sanadka markuu ahaa 1968 11 bishii Agoost. waxa uuna ku soo barbaaray Bravo, Utah. markii uu ahaa da'da 10 waxa uu bartay gabar lagu magacaabo Tamara. markii ay jireen da'da 22 way isguursadeen. kadib waxa uu ka qalin jebiyey saxaafadda. sanadka markuu ahaa 2004 Jad Dybal waxa uu furtay ganacsi uu asaga leeyahay oo ah shirkad soo saarta buugaagta. waxa uuna ugu magac daray Spring Creek Books. wuxuuna soo daawacay buugaag aad u badan oo ay haaf ka mid ah Lori ku waalatay. Tamara waxay Jad Dybal u dhashay 5 caruur. kadib familkan waxay u guureen Rexburg, Idaho, asaga oo sheegay in Allah uu sidaas ku yiri markuu waa inuu guuraa si uu u fuliyo amarka Alle. cajiib badana. Jad asaga sida aan anagu u aragna ma ahe si kale ayuu u arkaa dunidan aan ku noolnahay. wuxuu sheegay in bini aadamka ay yihiin kuwa madow iyo kuwa cadaan ah. wuxuuna u kala qaaday qaab la yaab badan oo ay maskaxdiisa u sheegtay. oo dadka madow wuxuu ku tilmaamay in ay asalkooda dhulka ka imaadeen waxayna raaci doonaan shaydaanka, halka dadka cadaanka ah ay raaci doonaan Nabi Ciise calayhi salaam. intii ay wada sheekaysanayeen Lori waxay Jad Dybal u sheegtay in ay tahay mid weligeed jirtay oo ay leedahay 21 nolol hore ah, weliba 5 ka mid ah ay ku jiraan meeraha dhulka aan ku noolnahay. Lori kaliya ma aaminin Jad Dybal eriyadiisa ee xataa aad ayay asaga ula dhacday. Lori waxay ku waalatay fikradan cusub oo ay ka heshay Jad Dybal, xataa asagana way ka heshay. kadib qoraalladii iyo iimayladii way isku sii diri jireen iyagoo iska warhayay si tartiib ah maalinba maalinta kale. waxay arinta socotaba 2019 Lori guurkeeda waxa uu u muuqday mid sii burburaya. waxayna bilowday in ay waqti badan geliso diinta si tartiib ay ugu noqoto wax caado u ah. waxayna bilowday in nafteeda ay ka goyso wixii nolol maalmeedkeeda hore. waxay si adag u aamintay fikradda ah in dadka madow iyo dadka cadaanka ah ay yihiin dad laba meel kala duwan ka imaaday. Lori waxayba fikirkan ku sii darsatay inay ahayd ruux horay u jirtay. waxayna ku tala gashay in ay hogaamiso 144,000 oo koox, kuwaas oo weliba ilaalo gaar u ah iyada Allana u soo diray. waxay sidaas ahaataba Lori iyo Charles waxa soo dhaxgalay muran aad u weyn oo maalin walba joogto ah. 31 bishii January Charles waxa uu u baxay arrimo ganacsi wuxuuna maqnaa 1 isbuuc, laakiin asaga oo 2 maalin kaliya maqan
ayaa waxa uu waayay xiriirka carruurtiisa iyo xaaskiisa Lori. Markii uu imaaday airportka, ma u muuqanin wax ka mid ah familkiisa. Baabuurkiisana waxa uu ka waayay meeshii uu baakimay inta uusan bixin. Wuxuu soo kireystay taxi si uu guriga u imaado. Waxa la yaabka badan oo dhacay waxay yihiin furayaashii albaabka oo dhan ayaa la bedelay. Dharkiisana waxaa lagu soo tuuray meesha qashinka. Sidoo kale akoonkiisana waxaa lagala baxay lacag gaarayso $35,000. Isla markiiba waxa uu wacay booliiska. Waxa si degdeg ah u imaaday booliiska. Charles waxa uu sarkaalkii booliiska u sheegay in ay xaaskiisa u hanjabtay ayna dili doonto iyada oo adeegsanaysa awoodeeda ruuxiga ah iyo 144,000 ilaalo ee Alla u soo diray. Laakiin warkiisa ma jirin cid booliiska ka mid ah oo run u qaadatay ama aamintay. Kadib Lori oo la waayay ku dhawaad 58 maalmood ayaa ugu dambeyn Charles waxa uu go'aansaday in uu furo, wuuna furay. Markii dambe ayaa waxaa la ogaaday in ay Hawaii u duushay iyada iyo gabadheeda yareed ee Tylee. Markii ay ka soo noqotay Hawaii, waxay ka fogaatay familkeeda marka laga reebo gabadheeda Tylee. Hase yeeshee markan waa markii uu bilowday ficilkeedii cabsida badnaa. Sanadka markuu ahaa 2019 July 11 booliiska ayaa waxaa soo wacay nin sheegay in uu qof dilay. dambiilahaasna waxa uu ahaa Alex Coss, Lori walaalkeeda ka weyn. wax yar kadib waxaa imaaday booliiska guriga cusub ay Lori degtay. waxay degan tahay gurigan cusub kaliya maalmo yar markii uu dilkan dhacayay. Lori waxay iskuulka geynaysay JJ. Alex iyo Tylee waxay joogeen guriga. Arrintu waxay u ekeed in Charles uu imaaday guriga Lori oo xilligaas uu ku sugnaa walaalkeeda Alex. waxaa dhaxmaray dood aad u kulul. iyaga oo sii doodaya ayaa Tylee waxay u baxday banaanka si ay u soo qaadato usha lagu ciyaaro baseballka. isla markaasna waxaa gacanteeda ka qaaday ushii Charles koor intuusan Alex kaga garaacin dhabarka iyo jeegada. Alex ayaa dhowr jeer ka toogtay xabadka ilaa uu dhintay Charles. meedkiisa waxa uu yeelay qolka fadhiga ilaa uu booliiska ka imaaday. run ahaantii waxay noqotay dhacdo murugo leh. waxaa la yaabka noqotay Lori markii ay imaaday goobta dilka ka dhacay. waxayba ahayd qof iska degan oo aan wax naxdin ah ka muuqanin, waxayna u ekeed sidii inuusan waxba dhicin. Lori markii ay booliiska wareysanayeen, waxayba iska ahayd qof iska qoslaysa oo iska kaftamaysa. artanoo kale yaa arkay, yaa badana. saacado kadib waxaa dhacay wax aan la filaynin. Lori isla markiiba dhimashada Charles waxay qabsatay xaflad aad u weyn. booliiska waxay dareemeen xoogaa shaki ah oo ku saabsan arrintan. Alex waxa uu sheegay in Charles uu soo weeraray, madaxana uu kaga dhuftay usha lagu ciyaaro baseballka. laakiin markii la baaray waxaa caddaatay inuusan dhaawac weyn ahayn Alex. Charlesna waxa uu ahaa mid aad u yaqaan ciyaarista baseballka. haddii uu rabi lahaa inuu dhaawac u geysto Alex, si daran ayuu u gaarsiin lahaa dhaawac xooggan, xataa wuu dili kari lahaa. kiiska Alex waxaa loo gudbiyey maxkamadda, waana la sii daayay markii dambe asaga oo aan wax su'aalo ah la weydiinin. maalinta xigtay Nicholas iyo Zachary, Lori waxay u qortay qoraal ah inuu aabbahooda dhintay, iyada oo u aragtay haddii ay wacdo wax dhib badan inay tahay. markay arrinta dhacday xoogaa kadib, Lori, JJ iyo Tylee waxay u guureen Arizona, meeshaas oo ku noolaa Jad Dybal. saddexdooda meeshaas ayay sidaasi ku degeen. laakiin sheekada ma dhammaatay. maya ma dhammaanin ee ila joog si aad u dhammaysato feelasha cabsida badan ee Lori Vallow. Lori waxay JJ geysay iskuul cusub bishii Sebtembar bilowgeeda, laakiin iskuulka ma geynin Tylee. Sebtembar 8 2019 waxay u waday labadeeda caruur xadiiqad lagu magacaabo Yellowstone National Park, waxaana la socday walaalkeeda Alex. sawirkan markaad u fiirsato, kulligooda waxay u muuqdaan inay faraxsan yihiin, laakiin waa markii u dambeysay ay Tylee la arko. yacni Tylee mar kale dib looma arkayo. si kadis ah ayaa waxaa loo waayay Tylee. waxaa la yaab noqotay in aysan Lori booliiska wargelinin in ay gabarteed la'dahay. Lori waxay sheegtay in Tylee ay aaday gobol kale 2 isbuuc ka hor. qof ogaana ma jirin in Tylee la waayay. maalintii xigtay JJ waxa uu bilaabay iskuulka, wuxuuna u muuqday mid aad ugu faraxsan. waxa uu samaystay saaxiibo cusub, laakiin 2 isbuuc kadib 17 bishii Sebtembar, diriskooda kaamirada albaabka ugu xiran ayaa waxay duubtay muuqaalo asaga iyo saaxiibadiisa wada ciyaaraya. hase ahaatee waxaa ku dhacday sidii walaashiisa Tylee
waa markii u dambeysay oo la arka JJ 23 bishii Sebtembar. Lori waxaa laga soo wacay iskuulka JJ iyada oo iskuulka ay ka saartay mar hore JJ markii uu weydiiyey maamulaha maxaa sidaas u sameysay. Waxay si fudud ku tiri aniga ayaa guriga wax ku baraya wiilkayga, sidaas ayuuna warkooda ku dhamaaday iyada iyo maamulaha. JJ sidaas ayaa lagu waayay iyo sidoo kale Tylee. Xoogaa bila kadib Lori asxaabteeda iyo familkeeda waxay bilaabeen in ay ka walwalaan iyaga oo ka murugoonaya labada caruur ay yar meesha ay jiraan. Lori markii la weydiiyey wax ku saabsan Tylee iyo JJ waxay ku jawaabaysay aad ay u wanaagsan yihiin, wax dhib ahna ma qabaan. Qofkii raba inuu arkana iyada oo been sheegaysa waxay dhahaysay waxay la joogaan saaxiibteyda ama waxay soo booqanayaan qaar ka mid ah ehelka. Inta lagu jiray xilligan waxaa dhacay laba shay. Lori waxay ijaaratay meel lagu talagalay in wax lagu keydiyo. Kooda bishii Oktoobar 2019 waxaa la arkay iyada oo ku keydinaysa baaskiilada iyo bustooyinka caruurteeda meeshii storage-ka ay ijaaratay. Waxaa mar kale la arkay maalintii xigtay iyada oo la socda Jad Dybal. Xarunta storage-ka ay ijaaratay waxay soo booqatay wax ka badan 9 mar inta bishan lagu jiray. Waxa labaad oo dhacay waxay yihiin 9kii bishii Oktoobar xaaska Jad Dybal, Tamara, iyada oo baabuurkeeda gadaashiisa kala soo bixisa adeeg ay ka keensatay suuqa ayaa waxaa soo weeraray nin wejiga face mask ugu xiran oo watay qoriga ranjiga ama paintball. asaga oo bilaabay in uu toogto ayaa waxay u qaylisay ninkeeda Jad Dybal wuuna orday. Waxay Facebook page-keeda ku soo qortay waxa ku dhacay iyo ninka soo weeraray. Run ahaantii Tamara way ka badbaaday weerarkaas, laakiin 10 maalmood kadib ninkeeda ayaa waxa uu sheegay in Tamara ay dhimatay. Ninkeeda ayaa waxa uu soo wacay xarunta booliiska asaga oo u sheegay in uu meydkeeda ka helay sariirteeda, sida muuqato way u dhamaatay nolosheeda markii ay hurdaysay, ayuu yiri Jad Dybal. Markii ay imaadeen sirdoonkii ay baareen waxay ku soo koobeen in ay si dabiici ah u dhimatay, laakiin markii ay weydiiyeen in ay sii wadaan baaritaanka meydka xaaskiisa, Jad Dybal wuu diiday. Maamulku waxay ku khasbeen in uu ogolaado asaga oo aan wax su'aalo dheeraad ah la weydiinin. Jad Dybal ayaa waxa uu u muuqday inuusan dib u arkin dhimashada xaaskiisa. 2 isbuuc kadib asaga iyo Lori waxay u duuleen Hawaii, halkaas oo ay labadooda isku guursadeen iyaga oo ku labistay dhar wada cad ah dhammaantiisa. Markay sidan dhacday, meediyaha iyo booliiska waxay dareemeen shilalkan dadkan faraha badan inay yihiin wax qariib ah, waxayna bilaabeen in ay indhaha ku hayaan arooskan cusub. Inta ay ku guda jireen bisha malabka ayay dib ugu noqdeen gurigooda, ha yeeshee markii wax ku saabsan caruurta la weydiiyo labadoodaba waxay u sheegayaan qof walba been. Jad waxa uu asaga dadka qaar u sheegay in Lori wiligeeda aysan wax cunug ah dhalin. Lori ayaa sanado kadib waxay sheegtay in Tylee ay dhimatay iyada oo aan wax sharaxaad intaas ka dheer bixinin. Bisha November 26 booliiska ayaa waxa uu go'aansaday inuu la xiriiro xarunta daryeelka ee JJ. Waxay aadeen guriga Lori iyaga oo weydiiyay halka uu jiro JJ. Waxay u sheegtay inuusan guriga joogin. Waxay kaloo u sheegtay in ay Arizona ku celisay iyada oo ugu soo tagtay saaxiibteeda Melanie. Si degdeg ah ayaa booliiska Arizona waxay u waceen Melanie iyaga oo weydiiyay arrintii JJ. Waxayna Melanie u sheegtay inaysan arkin JJ isbuucyo fara badan. Inta aysan Melanie wacin booliiska, waxaa soo wacay Lori iyo Jad Dybal. Waxayna u sheegeen haddii uu booliiska weydiiyay arrin ku saabsan JJ inay ku dhahdo wuu ila joogaa wuuna nabad qabaa. Isla xilligaasna kolkaas waxaa duubayay booliiska oo ka shakisanay markii hore. Maalintii xigtay booliiska waxa uu bilaabay inuu baaro guriga Lori, laakiin nasiib daro way baxeen oo waxay ku laabteen gurigii Hawaii laga soo bilaabo bisha December 29keeda 2019 ilaa January 2020. Booliiska waxa uu ku dhawaaqay in la la'yahay 2 caruur. Waxay imaadeen gurigii Jad Dybal si ay baaritaan ugu sameeyaan. Waxay la wareegeen kombiyuutarkiisa, joornaalkiisa iyo moobilkiisa gacanta. Sidoo kale booliiska waxay Lori u sheegeen inay keento JJ iyo Tylee, haddii kale ay ku muteysan doonto xirig. 4 bil kadib, June 9keeda 2020, booliiska Rexburg ayaa 7 subaxnimo waxa ay garaaceen albaabka Jad Dybal. Waxayna si sharci ah u wateen warqad ah in ay guriga baaraan. Gurigiisa oo ahaa ilaa 4 hektar ayaa waxa ay baarayaasha ku qaadatay ilaa 2 saacadood. Waxayna heleen qaybo ka mid ah jir bini'aadan oo go'an. Hase ahaatee way aqoonsan waayeen jirkan inta yar ee la helay. Laakiin maalintii dambe waxaa la xaqiijiyay in ay yihiin JJ iyo Tylee DNA-dooda. Ugu dambeyn waa la helay caruurtii iyaga oo meyd ah qayb ka mid ah jirkooda. Laakiin inta kale ee familka iyo asxaabta waxay rabeen in ay ogaadaan waxa ku dhacay labadan caruur. Run ahaantii aad bay ugu naxeen familka markii ay arrintan maqleen.
ilan waxay ka warhaayeen in ay carruurta wanaagsan yihiin sida Lori ay sheegi jirtay, laakiin nasiib daro sidaasi ma ahayn xaalka. Saacadda markay ahayd 11 subaxnimo maalintii la ogaada Jad Dybal waxa uu isku dayay in uu baxsado, laakiin booliiska ayaa qabtay oo xiray asagoo ordayay ilaa iyo hal meel. kadibna wuu isdhiibay asagoo awoodi kari waayay inuu sii ordo. wuxuu isdhaayaan umaleena warniyo nin odaya tahay halaan kadib masii carari kartida iska fariiso, asaga oo loo xiray maadaama uu gurigiisa meed ku qariyay, taas oo ah cadeen ku filan. labadaba Lori iyo Jad Dybal waxay ku jiraan xabsiga. xukunkoodan waxa uu dhacayaa isla sanadkan aan ku jirno dhexdiisa ee 2023 bisha April. iyada oo la isku raacay markhaati badanna loo helay ayaa waxaa la sheegay in Lori ay carruurteeda ula dhaqantay sida juudaanka oo kale ama zombiya, sida aan ku soo sheegnay muuqaalka bilowgiisa.